sool sanaag iyo cayni waa magaalooyin istaraatiiji kuna yaala marin muhiim oo badana isku xidha gobolada waqooyi iyo weliba kuwa koonfureed waana magaalooyin ay dul hadheeyeen murano siyaasadeed oo ka kala yimaada maamulada feedhaha weyn Puntland iyo Somaliland inkastoo haddana dadka deegaanku ay iyagu mas'uul ka yihiin danahooda gaarka waana ta keentay in Khaatumo la midowdo Somaliland si ay uga dhabayso rabitaanka shacabweynaha ku dhaqan gobolada sool sanaag iyo cayn maalmihii u dambeeyay waxaa hadalhaynteeda la hayay dhaqdhaqaaqa madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo waday oo ah in deegaanada Khaatumo loo unka maamul cusub isla markaasina ay gebi ahaanba isaga huleelaan Puntland shacabweynaha magaalada Laascanood ee xarunta gobolka Sool ayaa u soo jeediyay madaxweyne Gaas eedeemo iyo canaan aan tiro lahayn shacabka oo aan la dhex qaaday mikrofoonka saaka ayaa gebi ahaantoodba ka sinna in sool sanaag iyo cayni aysan quseen Puntland isla markaasina tashteen oo aysan dib uga laaban doonin go'aankooda waxaan oran lahaa intii sabad daryeela tu kala ku dara Cabdiweli Cali Gaas Puntland maanta loo dhibay maamul caadi ah ahayd maantana iyadiiba waxay taagan tahay Boosaaso dhinac bay u go'day Garowana dhinac bay u go'day Galkacyo dhinac bay u go'day marka qof isaguba tiisi ay dumaysay u dhamaatay dad dantooda gartay oo maamul noqday oo Somaliland daroobay oo danahooda raacday oo waqooyinimadooda ku saaran in ay ku mashquulaan macnaha waxaan u arkaa waxaas inay tahay waxa la yiraahdo hinaasi rumba ummadu ku wada hadasha nabigeena yiri calayhi salaatu wasalaam ummadaadu ma istishaha ma sinaysataha beenta ma isu sheegtaa la ummadaydu beenta isuma sheegto runtan maanta hayse maxamed Cabdiweli hore ugu sheeg weeday sool iyo sanaag iyo cayn maxaad ugu sheeg weeday maxaa adiga ku haystay haybahaana dalka adow xiga aragti ahaan iyo madaxnimada adow ugu dhawaa halkaad maanta leedahay waxmaan diin sameynayno ma sameyn kartid nafna nooma haysid lulbahantana nafku ma hayo annagu awalba maamul waanu haysanay maamulkayguna Khaatumo ahaa Puntland Khaatumo ma taliso Somaliland ma taliso laakiin waxa la yiri bariirow haday laba bahal isku ka baaqdo hadba kii bahnimo ku xiga la isku badiyaayo horta anaga Puntland maanta wax wajiyayno haysaa ma jirto mana doonayno totalis Khaatumo haduu leeyahay Khaatumadii hore baa waxaan kala doonayaa dawladda federaalka ah baa waxaan kala doonayaa maamulkaas la idin aqoonsanaya waa soo dhaweeyay laakiin hadii ay tahay Khaatumo kale lubaanta kale lagu baabiinayo anagu ma soo dhaweynayno arrinkaas aan ka taaganahay haddaan nahay shacabka magaalada Laascanood laakiin waxaan maleynayaa inaysan ahayn inay tahay in mataqaana anaga ku kala fogeeyo waranagu amni iyo wanaag iyo wax ka san haysanaa marxim markaan ka hadlo fikirkii ku aadan arrinka uu madaxweynaha maamulka la magac baxay Puntland ka hadlay waxaan leeyahay Puntland iyo halkan isma qusayso Puntland buu madaxweyne ka yahay halkan waxa ka madaxweyne ka waxay la jaan qaadaan ama ka tirsan yihiin maamulka Somaliland marka wax micnaa ma sameynayso hadeer walow markii Khaatumo ahayd oo cadaadis badan saaray oo meel kasta dal iyo dibadba uu ka qayb qaatay hagardaamada Khaatumo hadeerna wax yeelo ma ahaan wax uu soo kordhin karo ama uu qaban karo dadka deegaamadan degan madaqadan SSC haba yaraatay ma jirto madaxweynaha Ergara waxaan sheegayaa dekada Boosaaso meel kaga warrandhe Khaatumo yaa faareeda ka bax ganjaalka anigu soo xidhanay xuduudka waxa weeyaan Khaatumo way noo dhisnayd muddo dheerna way noo dhisnayd meesha ay ka cagajiidaysay ka fadhiisan weydayna xaggaagaan ku eedaynayna annagu waa ku baahanahay inaad taageertana waa ay fiican tahay waxa la nin walaalkii bahal uu yiri yaa barbarin doona annagu barbarkaagaanu taaganahay meesha aanu ka cagajiidaynay cadawgu naga haystaana waa xaggaaga haddaadan taageerayn Khaatumadii hore dhisnayd ta dambe waxay tahay anagu garan maynee ma mid maamulka Puntland aad ka dhex saaraysaa madaxweynaha Puntland waxaan sheegayaa hadal ticsan baa ka tagay gobolada sool sanaag iyo cayn dadkoodu way tashadeen wax Khaatumo iyo uu sameeyay ma jiro kuwa la diriraya la dagaalamay adeerkoona way tashadeen Somaliland iyo Khaatumona waa isku mid waxaan leenahay deegaanadaada u til Cabdiweli inaad deegaanada sool sanaag iyo cayn aad raadid Khaatumo u sameynaya iyo maanta ma jirto marka Boosaaso iyo Garowe aad u talisid maamulkaaga hagaajisto bad qof kale oo talin kartaa laakiin kuwa adeer way tashadeen waa Somaliland iyo Khaatumona waa isku mid deegaanada sool sanaag iyo cayn dadkii lahaaba haysta farahana kala baxbaan ku oranayna bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan leenahay madaxweynaha Cabdiweli Cali Gaas markii aanu kaaga badadweynaha ku dhaqan sool iyo sanaag iyo cayn markii aanu kaaga baanayn maamul goboleedka nabadno gacan nagu ma aanan siinay noomanadan ogolayn laakiin hadda markii aad maqashay dadweynuhu way tashadeen waxay raaceen maamulka Somaliland
ayaad leedahay waxaan siinayaa maamul u gaara kaagama baahnin saaxiib markaanu kaaga baahnayn ama gacan qashro khaatuma ay kaaga baahnaydba oo adiga inuu gacan saydhay haddana kuguma baahnin inta xuduudeeda nooga dhimanna waa soo xidhanaa insha allah billahi kariim xamse raadeeye telefishinka RTN laascaanood